halkan imka saydi kan muuqata wuxuu lugaha ka garaacaya macnaha farasku meel buu galay luguhu ka garaacaya wuxuu doonayaa inuu meesha macnaha sidoo xaqu isagu ka saari la meesha ayuu isku dayaa inuu bahalka lugaha ka garaaco waad aragtaan farasku ma socon karayo ma bixi karayo dhinac oo dhaqaaqo ma jirto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo dhawaada asxaabta walaalkiisa Sultan Kasmaal halka waxa ku soo gudbin doonaa muuqaal dareen leh runtii aniga ahaan dareen khaas ah kaliya kana runtii aad la arki doontaan sida aad ku arkaysaan halkan muuqaalka idinka muuqda waxaad arkaysaan waa xayawaan faras ah xayawaankaas qof baa dhibaatooyin badan u geysanaya inaga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xayawaanka wuxuu inoogu macnaha Ilaahay inoogu abuuray waa inaan adeegsano oo aan gaadiid ka dhigano laakiin looguma talagelin wax macnaha intuu qaadi karayo wax ka badan in la saarno looguma talagelin halkan imka saydi kan muuqata wuxuu lugaha ka garaacaya macnaha farasku meel buu galay luguhu ka garaacaya wuxuu doonayaa inuu meesha macnaha sidoo xaqu isagu ka saari la meesha ayuu isku dayaa inuu bahalka lugaha ka garaaco waad aragtaan farasku ma socon karayo ma bixi karayo dhinac oo dhaqaaqo ma jirto marka waxay ka mid tahay imika dhibaatooyinka imika waxaan abaarahan iyo waxaan oo dhibaato waxay noo keenaysaa iyo colaadahan iyo waxaan waxay noo keenayaan waxa Ilaahay wuxuu inoogu naxariisanayo inagu eegaya waa ma yeedhaan kan iyagu ma hadlayaan waxa loo baahan yahay inagu naxariisano wax macnaha intay qaadi karaan ka badan inaynaan saarin baa loo baahan yahay sida halkan idinka muuqata hadda imika arxan darro badan baa ka muuqata farasku uma malaynayo markuu hadda halkan haduu ka baxo inuu macnaha sii socon doono ama uu sii dhaqaaqi doono oo uu sii raran doono uma muuqato kan oo kaliya ma aha geeyga Soomaalidu ay degan tahay haday faras noqoto haday dameer noqoto haday awr noqoto waxaan adeegsano oo dhan gaadiidka Ilaahay inooga dhigayba Ilaahay baa inoo cabiidiyay oo inooga dhigay inaan gaadiid ka dhigano ma aha inaan macnaha inta ka badan tankiisa aan saarno xayawaanka waa inaan u naxariisano waayo waxa macnaha xadiiska sidoo nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam nagu sheegay bisad yar gabadh xidhayba ayaa macnaha ku cadaab mudatay waxba sii weydo gurigeeda ku xidhato quudin weydo marka waxa loo baahan yahay inaguna inaynu arrinkaas ka hortagno oo arrinkaas in laga wacyi geliyo oo waliba dawlad iyo shacab arrinkaas in laga hawlgalo meel waliba Soomaaliya ay joogto ayaa loo baahan yahay marka asxaabta kliibkan macnaha ama muuqaalkan waxa idinku soo gudbiyay inaad meesha aad joogtaan bal wacyi gelin aad ka bixiso qof walba oo adigu si gaar ah adigu aad macnaha xil qaanto adigoon qof kale ama dawlad ama cid kale isku halaynayna adigu is xil qaanto qofkii aad aragto inuu xayawaan dhibaataynayo aad macnaha si fiican wax ugu sheegto maasantii